سلام سر دمانتي سو دhowaad walaalahayga qaaliga ah soo dhawaada dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaalayaal dhamaantiin inta soo badanaysaan please share ka taabta tiimamkeena kale oo dhan u gudbiya Soomaali weyn u gudbiya KDS u gudbiya dhamaantiin aan soo badano insha Allah wax yar ayaan ka wada hadli doonaa farxaan xidig soo dhawow dhamaantiin soo dhawaada midnimo qaran KDS magaciinana waxaad raacisaan si aan u garto magacaaga ugu horeeya raaci insha Allah bilmillaah kariim tiimkayga ka hadla tiimkeena groupkeena soo dhawow Cabdiqaadir Alkacsi aad baan ku soo dhaweynaynaa soo dhawow inta soo badanaynaa sugayna wax yar وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دمانتي سو دhowaada walaalayaal soo dhawaada midnimo qaran team aad baan ku salaamayaa ibnu sahal walaalkii qaali soo dhawow aad iyo aad baan ku salaamayaa dhamaantiin waan salaamayaa walaalayaal wax yar dadka intee noo soo badanayaan sugaynaa wax yar oo important aan ka hadli doonaa insha Allah آمين دمانتين موليد يرى آد بخو سلام يا والله لي دمانتين سو دوادا dad yar baa ku jira waa u jeedaa 12 qof baa tihiin soo far dad badan uma jeedo laakiin waa bilaabaneynaa inaga hal iyo laba iyo saddex iyo afar macna weyn ma dhisayso just waxaan rabnaa wixii aan ka hadli lahayn insha Allah bilmillaah kariim inaan ka hadalno aad baan idin salaamaya dhamaantiin aad baan ummadda Soomaaliyeed meel kasto adduunyadan dacaladeeda kaga nool yihiin aan u jecelahay kulligiina waxaan idin rajeynayaa Allahna in kaga bareeyaa in Ilaahay xaqa iyo maxay nawaafajiyo wanaaga
kulligeenna sida aan jecelnahay oo wanaaga ku jiro ilaahay inuu rabbi raxmaan nagu aadiyo walaalayaal dhammaantiin aad baan idin salaamaya walaashin midnimo qaran waaye jamiilo dhammaantiin waxa qaar baa dad badan baa waxay u yaqaanaan midnimo jeejey midnimo qaran team horta aad baan u salaamayaa groupkan cusub midnimo qaran team waa midnimo waa program ku saabsan ama barnaamij aan ugu talagalnay maadaama dhibaato badanna soo martay maadaama dadkeenni kala baabi'een maadaama dadkeenni kala qaxeen maadaama aan adduunyada dacaladeeda ku silicsannahay meel kasta oo dunida dacaladeeda ka mid ah dadkeenni ku silicsan yihiin maadaama wadanninimadeenni yaraatay maadaama aan nahay nation ilaahay nama rogin laakiin almost rogmaday inaan isu daba qabanana aan rabno barnaamijka midnimo qaran baan rabaa caawa inaan kaga sheekeeyo maanta walaalayaal iyo caawa ka idin tahay waxaan aaminsanahay meelo badan ayaad kaga soo jirtaan dadka qaar baa Afrika jooga dadka qaar baa Asia jooga dadka qaar baa Australia jooga waan kala waqti duwanahay anna United States baan jooga marka waxaan rabaayo kaliya inaan wax kasta oo aan oran lahaa teamkayaga super team baan qabnaa great people baan qabnaa ayaga ayaa wax walba ka hadlay walaalkeen wadani daba ilaahay khayr ha siiyo walaalkeen cabdisalaam gentleman allah daayo ninkaas allah daayo dhamaantiina barta walaalkeen ibnu sahal oo maanta tan naga soo kafargareey Germany aad baan kugu salaamaya aadna proud baan kugu ahay abwaankeena weyn qaran maxay tahay haddana not only abwaab inuu yahay haddana actorka haddana maxay tahay majaajilaystaha wax kastaba waa boodhari aad ayaan kugu mahad celinaynaa haddaan nahay midnimo qaran team waa midnimo qaran team waa midnimadaadii waa taydii waa teeni ma ahan mid qof leeyahay kulligiin meesha annaga aan ka bilownay dhinaceeda ayaa qaban kartaan waxaa la yiri gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan meeshii waxbaan ka bilownay qof walba dhinaciisa ha ku dhago Soomaaliyeed wii dhalinyaradaas oo mid walba meel naga soo kafargareeyay walaasheen oo Jarmal ayadana naga kafargareynaysay Naciimo Geedi gabar qaali awaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noo daayo dhammaan gabdhahana Allah ha noo daayo wiilashana Allah ha noo daayo waxaan rabaa inaan waxyaabo yar kaysa qabyaaladiid walaalkay qaali gadaal baan ka arkay somehow anoon ku jirinin Facebook ayaan arkay live ka soo gashay waan ka xumahay aad baan uga xumahay and I apologize inaan kugu soo qorin meesha waan ka xumahay raali noqo insha Allah video-yada dambe barnaamij baan sameynaa gooni inoo soo teamka adag ee ka shaqeynaya midnimo qaran team waxaan rabnaa waxaan isku ognahay insha Allah inay aan ku socono schedule because schedule-keenu waa kala duwan yahay idinka Yurubta joogtaan annaga American joognaa Afrika dadkeena qaar joogaan walaalaheen oo naga soo kafargareyn doona meelo badan xamar xataa walaalkeen baan naga soo kafargareyn doona barnaamijkan wuxuu noqonayaa wadan kasta qof inaan ka helno u soo hadla barnaamijka midnimo qaran wadan kasta qof baan ka keenina insha Allah bilmillahi karim waxa uu ku saleysan yahay ama uu ku saabsan yahay dadkeeni kala tafaraaruqay inaan qalbiyadoodii isu soo celino si because midnimadu walaaltan gurigaaga iyo noloshaada iyo mustaqbalkaaga iyo aayahaaga iyo familygaaga waa taas waa mid laakiin midnimada guud ee inaga dhaxaysa ayaa waxay tahay calankan walaalayaal iyo ciidi ilaahay nagu beeray ee awooyaasheen ku beeray ee ilaahay na siiyay ee aan lahayn waxa aanu midoobayno waxa weeyaan calankeena quruxda badan iyo ciideeni waxa aan wanaaga u raadinayno oo aan rabno in aan dhulkii ay ku dhacday ka qaadnana waa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ciidii ummadda Soomaaliyeed iyo qarankii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkeeni meel walba ku silcay ee aan noqday adduunka ilaahay ceelna uma qorna baalkii uma qornada la dhigi jiray dhinac kasta adduunyada dacaladeeda ku baaba'ay barnaamijkan waxaad ogaataan walaalayaal haddii aad aad tahay qof ku xiran shakhsi ama qof election ku jira ama state uu asoo gooni u leeyahay ama u malaynayo inuu gooni u leeyahay dhulka Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaali ah leh dhinaca gees to gees qof kasta oo Soomaaliya leh kulligeen baa iska leh awooyaasheen kulli bay usoo dhinteen awooyaasheen everywhere oo Soomaaliya laankeeda kamid ah ayay usoo dhinteen qof kasta oo Soomaali ana wuxuu leeyahay dhul aad u fara badan Cabdiwahaab Shiil soo dhawow aad baan ku salaameynaa Cabdiwahaab Shiil ina barataan baan jeclaan lahaa dhamaantiin waa IT-ga dhan oo midnimo qaran waa IT-ga IT waxa weeyaan ninka programka midnimo qaran oo dhan set up gareeya oo wax walba hagaajiya maca pictureska
aad baan kuugu mahadcelinaynaa aadna waan kuu salaamayna walaalkan waana ka xunnaa tacsidii walaalana allah u naxariista insha allah bilmillahi kariim wadani dhaba soo dhawow dhammaantiin waan idiin jeedaa soo dhawaada walaalayaal sheerkan ha ilaabina insha allah bilmillahi kariim laakiin waxaan rabaa inaan kaliya inaan idin sheego kow horta tiimka super tiimka midnimo qaran ka shaqeeya inagu gooni ayaan u shaqaynaynaa we have to get meeting oo degdeg ah oo maanta ah kulligiin meel kastoo aad joogtaan waan ogahay qaarkiin habeen ba idiin tahay laakiin meeting meel yar baan idiin samaynaya kulligiin aan soo wada gelaynaa si aan u noqono very organized at the same time si aan u noqono aan u ogaano qof walba schedule-ka uu soo galaayo taa waa mid aan u sheegayo tiimkeena midda kale tan waxaan rabaa dadka nagu soo biiraya barnaamijkan waa free waxaan u talagalnay qof kasta wadaninimadiisii qofkii wadani ahaa iyo qofkaan wadani ahaynba inaan kor usoo qaadno waxaan ugu talagalnay inaan ciideennii iyo calankeenii aan ku badbaadsano oo ku ceshano maadaama 27 years aan meel walba ka laalaadnay oo adduunka dacaladiisa aan ku daadsanayn hadda waxa aan raadinayna waxay tahay ummadeennii inay midoobaan in aan ka baxano maxay tahay kala baaba'sanaanta meel kasta adduunyada aan kaga jirno walaalayaal programkan haddii aad tahay wadani haddii aad jeceshahay ciidda Soomaaliyeed haddaad jeceshahay calanka buluuga aan adduunka ugu jecelnahay oo aad ku dhalatay oo awowgaa ku dhashay oo gadaal maxay tahay akiil loo soo halgamay ah haddaad jeceshahay u diyaar garow kuna soo biir tiimkan groupkan oo la yiraahdo midnimo qaran wax laga raba ma jirto only supporter kaaga iyo wanaaga dadkaaga inaad u sheegtid kaliya ayaa laga rabaa iyo inaad nala socotin oo na dhageysatay xataa haddaadan rabin inaad wax soo sheegto still waxaad na tusaysaa inaad tahay wadani qiimo iyo qaayale oo raba ciidiisa iyo dadkiisii haddii laakiin aad tahay qof raba inuu dadka maxay tahay qolo taagereeyo ama qolo maxay tahay ku kacsan ama qolo maxay tahay u doodaya oo raba inuu dad qolan u doodaya raba inuu dhaho ama raba inuu maxay tahay in adeerkiisa madaxtinimada ku jira raba si boorgareeyo ama raba maxay tahay asagu inuu Brita election iyo wax ka qayb galo barnaamijkan kaaga ma aha beejajkaaga ayaa taa ka samaynaysa haddii ilaahay yiraaho laakiin haddii aad rabto ama ay ku muuqato in aan mugdigii aan ku jirnay muddada dheer aan ka baxno ama aan dadkeeni ay noqdaan dad gacmaha is haysta midnimada guud ayaa inaga wada dhaxaysa ciidda naga dhaxaysa calanka naga dhaxeeya diinta naga dhaxaysa afka naga dhaxeeya haddii taa aad diyaar u tahay walaalayaal waxaan idin leeyahay oo waxaan ku soo dhaweynayaa midnimo qaran nagala qayb qaata meel kastoo aan joognana aanu ahaano ha u fiirin qof kasta oo maanta midnimo qaran ku jira wallahi aabahay hooyada ina dhalin buu ila mid yahay qof kasta oo midnimo qaban ku jirana meel kasta oo joogo waa kaga warqabaynaa waan isla ogaanaynaa waan isla meel dhigaynaa waxaan rabnaa midnimo qaran inaan noqono dad aabiyo hooyo wada dhaleen family inaan noqono insha Allah bilmillahi kariim markaan family noqono ayaa dadkeeni iyo dalkeeni badbaadaya inaga midnimo qaran ahaan waxaan idin soo jeedinayaa isku kalsoonaada meel fiican baa hadda wax noo marayaan insha Allah bilmillahi kariim dadkeeni waa soo noqday 2017 wax badan baa isbedelaya alxamdulillah dhalinyarada Soomaaliyeed waa soo jeesatay wadankeena wuxuu ka dayacanaa oo aan ka baaba'nay markii horeba waxay ahayd dhalinyarada maanta dhalinyaradii shalay badda lagu sii jeediyay oo qaraxa lagu sii jeediyay oo berri iyo ay meel walba ku baaba'ay maanta they wake up adduunyadii ayay arkeen adduunka in dhalinyaro xirto oo furto waana ku faraxsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed haddaa tahay qabyaaladiid haddaa tahay necab tahay kala maxay tahay qaaqaadkii kala qaybinta ummadaada Soomaaliyeed haddii aad necab tahay in cadaawo dhulkaagii hooyo la wareego haddii aad necab tahay in cadaawo shaarbaha si fiiqdo markuu arka dadkeena sida u kala bedelan yihiin haddii aad necab tahay wadankaagii iyo badahaagii iyo barigaagii oo la gadanayo waxaan ku leeyahay welcome midnimo qaran ayaa hooygaagii ah midnimo qaran ku soo bir midnimo qaranna waxay ku dhigaysaa kaar badcas annagu waxaan nahay hal family waxaan nahay hal team garaadshadana aad baan ku salaamayaa garaadshadana aad baan ku salaamayaa soo dhawow waxaan nahay hal team waxaan nahay hal family waxaan nahay ummad dhalinyaro iyo maxay tahay roolo iyo maalo isugu jirta kulligood Soomaali Maxamed isugu jirta oo ka fakartay inaan kaazinkayga ama in adeerkay taageero inayna meel igeenin inaan aniga magaalada aan ka imaaday taageero inayna meel igeenin in aan aniga maxay tahay qabiil maalba aan calamada u luxo inayna meel igeenin laakiin waxa kali oo meel igeenayo oo in anfacayo oo maxay tahay idinka in anfacayo aniga in anfacayo awlaadeena anfacayo mustaqbalkeena anfacayo ciideena anfacayo waa Soomaaliye inaan ahaano together waa Soomaaliye inaan ahaano hal waa Soomaaliye inaan isku xirnaano waxay dhahaan adduunyadan dadka anagu hadda aan la joogno kale waxay dhahaan we are stronger together inagu waxa inaga cilada in hesho waxay tahay cudurkii kansarka qabyaalada oo kansarka ayaa adduunyadii labadii darasoo noogu dhawaa waxay ogaadeen meesha aan week nahay
wiignimadii aan rabnaa midnimo qaran waxay u taagan tahay waxaan ka dhigannahay wiignimadii inaan tirtirno inaan daboolno in nala ogaado waxay aan ahayn waxaan rabnaa inaan u istaagno qaran kasta oo Soomaaliyeed kan ha ahaada kiisa kala ahaada waxaan ka soo horjeednaa wax kasta oo qarankeena duminaya waxaan ka soo horjeednaa qolo kasta oo rabta waddankayaga anaga u jeedna forsal in laga dhigo waxaan ka soo horjeednaa qolo kasta oo rabta waddankayagii xaraashi xoolashaba inay ka dhigto waxaan ka soo horjeednaa inta jeeb weynaaya inta tuug ah iyo inta maxay ta rabta waddankayaga anagoo nool oo dhalinyaradii nool yihiin oo aayihii waddanka oo dhan meel kasta ku dayacan yahay inay waddankeeni baabi'iyaan meel fogna geeyaan oo una ka soo noqon karin already waxaan idin sheegayaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta already meel dheer baan gaarnay meel fog oo adduunka wax gaara aysan jirin ayaan gaarnay anigu waxa aan idin sheegayo waxa wiilashii igu horeeyay iyo gabadhii walaashii igu horeysay ayaa soo sheegay waxa kaliya aan idin soo maanta in kugu soo galay waxay tahay anoon rabin hadalkoodii inaan dib ugu noqdo waxa aan idin sheegayo waxa weeyaan boodhari baa idin tilmaamay oo wadani dhaba idin tilmaamay oo keys qabyaaladiid baa sheegay oo gentleman ayaa meel walba naga tusaaleeyay oo naga tusay walaasheen nimca geedi ayaa naga tusay xidig yare oo ka soo hadlaya South Africa oo waliba idin soo wada ayadana barnaamij ku saabsan dhibaatada ku haysata dhalinyarada Soomaaliyeed South Africa ayaa maxay idin sheegay anigu waxaan maanta rabaayo kaliya inaan idin sheego oo idin kugu daro barnaamijkan haddii aad qabyaalad rabtid haddii aad inaad taageerto rabtid haddii aad rabto inaad maxay tahay magac ku raasatid haddii aad rabto inaad dawlad ka qayb gashid midna barnaamijkaagi ma aha barnaamijkani waa barnaamijka ummadda Soomaaliyeed waxa iskala ummadda Soomaaliyeed midka 2 sano jira midka caloosha ku jira iyo midka ciroolaha ah waxaan u taaganahay oo aan ka soo horjeednaa kala dayac kala daadsi kala qaybis kala gurgur iyo cadowgeeni inuu shaarba dheer la sii baxo cadowgeeni shaarba dheer inuu la sii baxo oo adduunka dacaladeeda ay alxamdulillah dhahaan ayaan diidaynaa waxa soo celin kara oo waddankeeni maanta meeshuu gaaray soo celin karana waa midnimo qaran oo kale midnimo qaran waxa weeyaan ummadii inay isu tagtay oo isku duubnaatay haddaan isku duubnaanin Soomaali Maxamedey akhriya adduun basaasan adduunkana uga takoornaanayna meel kasto aan mareynana sharaf darro ugu mareynaa baasaboorkaagana markii la arkay nationality-gaaga inaa Soomaali tahay aad niyo xumo gooni lagugu bixinaya oo gooni lagugu istaagaya markii la arkay inaad Soomaaliya ka timidna lagugu malaynaya inaad tahay horta dadka xuno terrorista inaad tahay maxay tahay tuug wax qarxinaya inaad tahay mid dadkiisu soo dhacay mid wax dhacay marnaba wax fiican nalkama sheega adduunyadii oo dhan waxay noo aragtay ummad zero oo aan hal aqli ah iyo hal cilmi ah iyo hal maxay tahay maskax midna lahayn sheekada aan rabnaa inaan ka baxno walaalayaal waa midnimo qaran waxay ku saabsantaa walaalayaal inaan calankeeni iyo ciideeni u halgano inaan ciideeni iyo calankii Ilaahayna siiyay ee Ilaahay nagu beeray inaan u halgano oo hal u noqono midnimo qaran waa hoygaagii haddii aad tahay qof wadani ah ama awoogiis wadani aha ama aaminsan dhulka Soomaaliyeed ama ciidda Soomaaliyeed awoogiis inuu soo dagaalamay waxaan ku leeyahay soo dhawow laakiin nagala qayb qaado si nadiif ah qalbi nadiif ah dhalinyarada maanta ku jirta ummadda ku jirta oday iyo gabar iyo wiil waa dad qalbi nadiif ah wata waa dad rabaan only inay ooyaan Soomaalinimo u ooyaan waa dad qabiil ka fog yahay waa dad uu ka fog yahay xataa aabaha dawladda haduu ku jiro waxaan idin sheegayaa xataa aabaha haduu yahay madaxweynaha oo uu maanta farmaajo ku dhalay ama uu ku dhalay khayre ama uu ku dhalay kambiri qaban doono haddii aad wadani tahay waxa aad u istaagaysaa danta dalka iyo dadka uma istaagaysid oo aabahay haduu qaldan yahay anigu xariga la geliyaan leeyahay because aabahay haduu qaldan yahay oo waddankayga Ethiopia u wado ama waddankayga u wado Kenya ama waddankayga u wado ummaddu inay kala qaybsato aabahay waxa qofka ugu horeeyo oo sheega oo xira aniga waay marka Soomaaliyeed qaladka ha ku taageerinina walaalihiin haddii aad tahay qof waxaasoo dhan banaanka ka ah midnimo qaran ku soo biir midnimo qaran waa only dhiirigelin isu keenid qiimeyn ciidoodii iyo dadkoodii waxaan rabnaa calankayga dhulka galay inaan 1 year gudihiis iyo 2 year gudahooda aan ku soo celino waxaan rabnaa ciidaydii dhulka gashay ee shaarbaha loo wada xoqday ee dad badan u lahaayeen hore aad qaadanaysaa 2 years inaan waxaan rabnaa haddii Allah awood leh na gaarsiiyo haddaan dhintana super team baa iga dambeeyo waan ogahay midnimo qaran dadka ku jira dadaan qaali haleeyada Soomaaliyeed oo dhan baa ku jira marka haleeyada Soomaaliyeed baa haddaan anigu dhintana naga dambeeya laakiin waxaan rabnaa waddankayga 27ka dhulka galay 2 years inaan ku soo celino sharaftiisii madaxweyne iyo maxay tahay dawlad hadda joogtan anagu dawlad kasta waa u taaganahay dawladii wanaag wada oo rabta midnimadii dadka iyo dalka iyo dhaqankeeni iyo waxaani iyo nolosheeni iyo diinteeni diyaar u ah anaguna diyaar baan u nahay walaalayaal anaguna diyaar baan u nahay anagu waxaan u taaganahay midnimo qaran KDS waxay u taagan yihiin
ummadoodii inay isku duubaan ciidoodii iyo calankoodii quruxda badnaan ay u dagaalamaan intaasaan u taaganahay waxaan u taaganahay ciideennii iyo calankeenii in aan u dagaalano maxay tahay dadkeennina ay midoobaan waxa nala ku arkay cilada nala ku arko adduunka dhan aan ugu dayacanahayna inaan ka baxno caruuraheena iyo maxay tahay waalidiinteena meel kasta ku dayacana inay hooy helaan maanta inta gabdhaha nala shaqeeyo maxay tahay u dhashay wadamada dariska 6 biloodna waa nala shaqeeyaan 6 biloodna wadankoodii ummadoodii oo dhan saa gacanta isu haysato ilaa Oromiya ilaa iyo bahalkii bay ku noqdaan oo albaro intii loogu yimaado sharaf annagana hal qof baan hal diin baan leenahay hal dhaqan baan leenahay qofkeeni niyad jab ayuu u baxayaa ma xagee fiis ma meesha ku dhalataa fiisad gareysaa ma meeshii reerihii nu joogeen baa frisga waa waxaa inagu dhacay disaster bay dhahan gaaladu iyo tsunamigii iyo disasterkii nagu dhacay ayaa rabnaa walaalayaal haddaan nahay midnimo qaran ummadeeni inaan ugaga baaqno oo ka soo celino oo aan qarannimo adag iyo dowlad adag iyo ciideeni iyo calankeeni aan ku garab istaagno haddaa intaa u diyaar tahay nala soo gal walaal qabiilkana waxaad soo gelisaa hadduu xataa iyar kugu jirtay insha allah bilmilahi kariim intaa yartaa waa iska soo dhaq adoo nadiif ah noo soo gal gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa kaarbid cas baan kugu dhigaynaa waan ku jecelnahay waxaana nahay dad raba qof ka mid ah halka qof oo ka mid ah ilaa iyo ayahooda inay isla dhintaan oo walaalo isku dhegan ay ahaadaan waxaan isugu dhegaynaa maaha xumaan waxaan isugu dhegaynaa maaha inaan qolo cayno waxaan isugu dhegaynaa maaha inaan qolo ka soo horjeesano ama qolo ataagareyno ma aha waxaan isugu dhegaynaa inaan dadkeena isu keeno waxaan isugu dhegaynaa inay ummadii Soomaaliyeed ay noqdaan one more time hal dantoodii iyo dalkoodiina ay dib u raacdaan walaalayaal dantoodii iyo dalkoodiina ay dib u raacdaan Soomaalidu waxay tiri adduunka dhanba waxa weeyaan wax walba we stronger together haddii aan we stronger together aan ka dhamayn oo aan ogaanin meeshii aan naalay kama kaceeno intii aan meeshii aan naalay ooli lahayna waa in dhalinyaradii seexatay shalay ay soo kacaan alxamdulillah maanta waa soo kaceen maanta meel fiican baan maraynaa maanta dadkeeni waa soo baraarugeen albaabkaas astaxaa isugu xidhan aad baa u mahadsantiin walaalayaal aad baa idin salaamaya dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamaya aad baan idin salaamay aad iyo aad baa u mahadsantiin aad iyo aad baa u mahadsantiin dhammaantiin walaalayaal sheerka ilaadinina inaa sheer gareysaa aad baan idin salaamaya dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamaya waa mahadsantihiin aayaha ummadayada waa waxa midnimo qaran ka saabsan tahay ababuleyna 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 isku duubniba aran lagu tagaa wallahi heestas way iga ilmaysiisay waxaan u baahannahay Soomaaliyeed waxaan u baahannahay walaalayaal waxaan u baahannahay Soomaali Maxameday waxaan u baahannahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u baahannahay bulshada Soomaaliyeed inay dadkeena isku duumaan inaan dadkeena isku duumaan anigu ma ka daalayo dadka ila mid ah oo wadani dhaba kamid yahay oo uu kamid yahay walaalkeen ninka la yiraahdo gentleman kamid yahay oo wiilasheen dhan ay ka wada yihiin oo boodari uu kamid yahay ma ka daali doonaan wallahi aniga programyada intaan galay barnaamijyada intaan galay wax badan ayaan bartay waxaan ogaaday wali inayna dhamaanin halyeeyadii Soomaaliyeed
aad baana taa ugu faraxsanahay iyo aad baan ugu faraxsanahay halyeeyada Soomaaliyeed waa nool yihiin ma dhamaanin waxaan islahaa doomihii badaha ku gadoomay ku jireen waxaan islahaa kuwii beerarka lagala baxay ku jireen aniga waxyaabo badan aan ka fikiri jiray sometimes waxaan sidii jiray dhulkan dadkii lahaa raggii lahaa gabdhihii lahaa dumarkii lahaa wixii lahaa oo dhan intii caqliga badneed waa inta beerarka lagala baxay iyo kaliya intii lahayd waa intii maxay tahay lagala baxay badaha lagu gadiyay oo nin Soomaaliya intuu doon yar oo laashoo dhacaysa $5,000 intuu ka siistay iyo $10,000 asagoo og inay 2 saac ka daba degaysa dhalinyarada Soomaaliyeed saa intuu ugu gureeyay kooxda socda lacagta igu shaba bacda Soomaaliyeed wadankeeni ma aha sidiisii hore dhinaca walba waxa inooga jira dad kale waxa inooga jira cadow badan waxa inooga jira qolooyin raba wadanka barwaaqadu saa u hig leedahay dhex fadhido dadka haysanin dadka waayay horar raba inay towin ku sameystaan towin track gaariga markuu halaabo waxa loogu aqoon riixida Soomaa qaadata oo kor qaada in saas loogu yeeray ayaa la rabaa wadankeena dhalinyarada Soomaaliya hurdada ka soo kaca oo toosa oo qalbigiina Ilaahay baan ku dhaariyay qabyaalada ka saara qalbigiina qabyaalada ka saara war olne aabaha iyo hooyada iyo habarta iyo adeerka respect gare inta kale waxaad u qaadataa inay aabaha iyo hooyada dhaleen oo kale inta kale oo Soomaali ah way kula dhasheen inta kale oo Soomaali ah waa ehelkaagi inta kale oo Soomaali ah waa kuwa bari ilmahaagi dhalaayo inta kale oo Soomaali ah waa kuwa adeerada ay ka guursadeen inta kale oo Soomaali ah waa isla familkaagi oo kugu soo wareeg oo saa kugu soo wareegay qof Soomaali ka shisheeya ma jiro dhalinyarada Soomaaliyeed Ilaahay idin abuurtay inta ka baqdaan adduunyadan aad aragteen dhalinyaro ku dhisan tahay adduunyadan aragteen waxa magac u yeelay United States of America hadda aan ku noolahay dhalinyaro waay waxa meel kasta qurxiyay waa dhalinyaro waxa hayweeyada ay jidadka aragteen dhiseen waa dhalinyaro hadduu hal jid halaabo dhalinyarada iskuulada iyo waxay qorayaan warqado waxay leeyihiin WhatsApp what happened maxaa say ku dhacday waxa adduunka dhan kala wada oo nin kasta oo jeebweynaha xataa hadduu rabo inuu meel gaaro uu aadayo oo wax ka raadsanayo waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed wadankiina hore idinka u dayacay because waxa la idinku kala qafilay xanuun salaam hebel ka fogow waa reehebelku waa kala fogeyn waa reehebelku waa arrin meel shisha nooga timid qabiilka Ilaahay waa baneeyay laakiin sida aanu isticmaalnay kansarka ah waa wrong waana si xun oo nolol ku talgalay haddaan nation inaan ku baabano ku dhamaano maanta waxaan helnay dawlad ummadii Soomaaliyeed ka hadlaysa waligay ma arag ani dawladda haysa midnima raadinayna shacabka Soomaaliyeed ayaa iskala dawladdaas inta kaliya oo aan maanta proud ugu ahay waxay ta erayga waligay ma maqal waligay dhagahaygu ma maqal dawladda waa shacabka iskale shacabka ayaa u shaqeynaa idinka ayaa iskala dawladda anagu ma lihin idinkaan idin haynaa shaqada maanta taasaan haysanaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto aan istaagno waa inaan annagana ummadii kala baabacday 27 yearska sidii World War II ummadaha kale wadamada kale markay isdagaalayaan suuxeen ayagu isbaab iyo eberka iska dhigay waa inaan isu keenaa waa inaan isu soo celinaa waa inaan walaal iyo maxay tahay iyo wiil kulligood kala tagay laba waxa arkaysa xataa isku aabaho kala tagay oo because laba qabiil bay kala yihiin waa isku hooyo laakiin laba qabiil bay kala yihiin dadka waa inaan isu soo celinaa insha Allah bil milaahi kariim barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay midnimo qaran ama haddaad aragteen page-ka midnimo qaran ama haddaad TV-ga igala socotaan midnimo qaran waxay ku saabsan tahay oo kali ah calankayagii iyo ciidayadii inaan u halganno waana dhaar bayna naga tahay waana u halgamaynaa waana u dhimanaynaa ummadda Soomaaliyeed oo xanuunka laga dhaadhiciyo oo maalin walba dhalinyaradayadii maalin kasta everyday waxaa maqlaa xamar qaraxa ka dhacay maalin kasta dadka dhimanaya ma taqaanaa dadka dhimanaya dadkaagii waa loogu talagalay inaan rugmano dhimashada waa inaan ka soo horjeednaa dadkeena la qarxinayo waa inaan diidnaa maalin walba dadka la qarxinayo waa dhalinyaradeeni waxa meelaha lagu gubayo waa dhalinyaradeeni waxa la isugu dhiibayo baako draaga intii laga dharjiyo waa dhalinyaradeeni marka walaalayaal waxaan in kula dardaarmayaa nagalana soo qayb gala midnimo qaran barnaamijka midnimo qaran nagala soo qayb gala waxaan in kula dardaarmayaa hab maalintii hal qof naga dhinto oo nolol ka guba xamar ama meel kale nolol ka qarxiyo kulligeen waa inaan u istaagnaa waa inaan diidnaa waa inaan ka gelgelanaa because naftu waa qaali Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofna maalintiisii ka dambo ma qaadanayo laakiin inaga dadkeeni waxay u dhamaadeenba meel sokay dad baa laynaya oo madaxa soo duubtay waxaan qolooyin ana magacooda meeshan ka sheegay baa madaxa soo duubatay oo rabta dadkeeni inay dhamayso may faanteen marka dadkeeni waa la dhamaynayaa indhaha kala furta dhalinyarada Soomaaliya joogtona waxaan kula talinayaa
وفكر أو إنكو أجادا واحد كان يرمينايا أو because أدوك أنا يرى واحد بدشة واحد بدل أنا جرب كينا نهبيني مال وإند بتاعنا من ما قرن تيم كان إيه وح إن اللي أنت كنت من ما قرنا وحن ليه هاي برنامج الصور دي جوحي أو محيتي إن كلك حي لكن قلبي صافية ينيد وناكسن يدعى النمو aan la wada imaano meel baa gaarayna horan waa u soconayna dayaxa ummadii kale u tashtay inay degaan ayaan inaguna ku gaarayna 2 sano ka dambe insha Allah bilmilahi kareem in 2 years waxaan rajaynayaa hadaan nafta beena aan waayin anagu sidaan u nahay teamkan adag waxaan rajaynayaa in Allah inta nas borgareysay in Allah inta niyada saafiga leh in Allah inta wadaniga ah ee aamusnayd meel ku hadashal ayd qola ay la hadashal ayd waxaan rajaynayaa in xal u helno بابا أدتكينو كدعي يا بلنبال كدتكينو كدعي يا قبيالة يا قشنكا نلا وجاده شيء نو كلا برتين أو محيط نو استعمالي أدو مريهب الباتا هذا ريهب لك كافي عن باصو بني صنايا ريهب لك كافي عن وحنور هاي أصحان نو سميناي ما هتا وجاده وحسين نو لي هاي أسقى باص بني صنايا أسقى وحكليو ربا هذا الوحال إلا بين أن ولجي أرحستا لا يقول هاي هذا كهر صومالي مركي دولة هيد عادي هيد بانين أو وحليري لا شقيني جمهري أو درسيدي نامتكون بايري باليري ما أنت توحد لضج على تين دولة دي أو صوماليا ما قاعد كلمتي أيها أنت ساكن أنت ما يتوتل كما قاعد كان تبير كل جيم بس قدروا ما قاعد كلمتي فيريا كل جيم بس قدروا عادين كجمهد يكون دولة كجرو بس قدروا ما قاعد كلمتي أصلا وحنا كل راح يسنى يا إلا إنه كواسنا كنت بكلمتي كوانا بقول بكلمتي أصلا وحنا رادين يا توتل كا إمسا جودها نتكلم because أصلا main كيس مسكحس كمان ليدنا أمضى Soomaaliya دليل Soomaaliya مد بين ربعنا أدي شيء إن أنت والحجرة أنت عقلك لي أنت ودنيك كمان ليدنا أمضى الدنيا ده وضن كودي عيد وأويسه أنا كم حنا قد جاي واحد بهاهنا أو إسقاط عضا أو حرقهين أو أدون قبل الله الزيرة كتين محنا قد جاي ضمير كي يضن ماذا عقلك مسكحة يدرين كي عيدي إلى هاي نقبر أو Soomaaliyeed wiilkee ka Soomaaliga waxay ciidisay inuu dhinto in state uu dhimanay asaga in la soo adeegsado gabadha Soomaaliyeed waxay inay inta uu dhimanayso maxay teen qola ay laga warruusay iyo qabiil hebel ba maanta hebel doona inta uu dhimanayso inay u dhimato ciidi ay Ilaahay ku beeray iyo dhulkii Soomaaliyeed maanta hadii la dhaho nin baa wuxuu soo wacanaya magaalo wuxuu leeyahay election baan galayaa hal isoo arko كل ناقو هذا واقع على العقبة والرونيان واحد ضلك نورت واحد رأي ما أنت ومادرس دي I don't want مادرس كو أنا جنا كميت بانا هاي أنا منطقة أنا دليله لكن برنامج نبى ربع أنا صوّده دمر كيجا حوجا ودمر كصومالي الدون كدمر كأوقع لسنوات لكن وحيابا أنا دليله أنا هاي أنا إن شاء الله بالملاك كريم وحربا أنا أديبه حتى أنا أديبه قالوا كله أديبه سملها وضن كان إن شاء الله وحي بالبريانة ويكجرين هذا وح ولي وضع رهبلو يو نن مدحها يناق مدحها وحوضا وأيجا ورؤوا يستاج على كانوا يستاج هو يستاج نينا إن أدير كاين أبتجايو نن دولة كجرة وحقوا يستاج كان على كان قفك كرو قاضي كقاضي نوكا ميل دير جالسين كاو يستاج هو إلهي بن كل أريه حقيمة نينا هناك فكرنينا قف كان وحبا اسكتينو أدو ما أنت أول ولا برين أدنو حقوسينيا تاه كفكرين مسكح هذا ميل دير مجالسي سنة مسكح هذا نو ويرته هذا سأو فكري because هذا كانوا لمن ويدو إن أديرك أصبروا عرفته وحبكم نقول مايو ملعدو كاجا تجيا مدك لإن أديرك أتشجيسو قولك أديك أوجار وأصور أنت وكل أدي أسقولك أوسمنتين عيدنا وأوسمنتين مزول بان أنك ورا صارن تغير دولة هذا أوكي وان لكن وحيامها كلو لو ما أنت تلقاها أفر بقول وحفلود بالنا كان عادي أفر بقول وحفلود معلقة ضد كانين ببختنا يعني العقد الجسمي ما قوى ضد كانين حاجة يكونوا لين قاتشي داعم بابي dadkeena xagee ku nool yihiin qarax baabiye xamar maalba waxa ku dhimatay halyeeyadan oo dhalinyaradan oo waxaas intaas ku dhimatay dadkeena baa la baabiinaya everywhere adduunka lagu gumaadaya xabsiyadii bay ka buuxaan waxaas u baahan fan garayn uma baahna baadhi in maxay qof loo dhigo la dhoo kaalay aan tumanasho waxay u egtahay qofka raba qof wadankiisii nabad qabo oo leerarkan iyo adduunyadan iyo hayweeyadan oo kala haysta oo maxay midaysan oo maxay waxbarasho haysta oo caafimaad haysta oo haysta humanka waxay ku nool yihiin oo dhan laakiin qof wadankiisii uu yahay dictator oo adduunka taariikhda adduunka laga tirtiray oo loo og yahay dadaan waxba ahaynba inay yihiin oo haddana habeen walba xaflad u taagan inuu dhigto anigu yaabay kullay dad badan oo caqli lana way la yaaban yihiin aniga aan ugu caqli xun Soomaali believe me oo aad aan u yaabanahay aad ba iiga soo aan ula yaabay markaan arko sida Soomaalida xafladaha u jecel yihiin oo ugu cararayaan ma ugu carartaan calankan ma ugu carartaan ciidiini maxay diiday calankaanse yaa u cararaya yaa u soo dhintay dadka awooyaashiin u soo dhintay oo waliba u soo dhintay leer la'aanta oo u soo dhintay gaar la'aanta oo u soo dhintay diyaar la'aanta
waxay ka tageen maxay noqdeen xumbada oo weel dharka lagu dhaqday noqdeen baan qaata xumbada dharka lagu dhaqdo taasaaba dharkii wasaqdi ka saarayso soo maa walaalayaal aniga waa jeclahay Soomaali carana way heesaa sometimes meel waxyaabo kale ka fikiraya waxaan dhahaa dadkan wad happy waxyaabo wad ka fikiraysaa ilaahayna maskaxda wuxuu noo galiyay inaan wax is weydiino Soomaaliyeey sida hore aan isku dhaamno bulshada teamkan kamid ah iyo dhalinyarada kamid ah iyo midnaba qaranna waxaan idin leeyahay gacmahan saa isku haysanaa mana kala fuqayno haddii aad tahay nin ujeedo kale leh ama naa ujeedo kale leh ama bulshadoon iska ah teamkaagi ma aha teamkan waa team raba inay guul gaaraan oo ay taariikh reebaan oo ay soo celiyaan dadkoodii kala baaba'ay qof kasta oo Soomaali ah meel kasta oo ku nool yahay adduunka meel kasta oo ku nool yahay uu ka soo galayaa hadda Bakin China meel kasta ayaa la hadalnay waa nolol ka soo galaya live baa laga soo galaya qof kasta oo Soomaaliya oo arin raacay xataa uu soo galaya midnimo qaran waa idinka iskale aniga iskale inaga iskale kulligeen ayaa iskale laakiin waa inaad daacad noqotaa waa inay noqotaa waliba waa inaan wax ka baranaa wixiina soo maray oo aan ku bedelnaa wadankeeni iyo dadkeeni iyo dalkeeni wixiina soo maray adduunyada qofka intay wax ku dhacaan aan haddana wax ka baranin wax kastoo ku soo maraya adduunka waa barashada marka waa in wax laga qaataa disaster baana soo maray tsunami baana soo maray baaba iyo hoog baana soo maray dayac baana soo maray dhulkeeniyo anagoo taagan la kala gadanayaana soo martay waxaana soo maray badaheeniyo la baayacay waxaana soo maray maxay ta cadowgayagiyo gadaal intay usoo dukeen meel walba habeen walba indhaha soo xirnay qafta ku haayo wax kasta ayaana soo maray waxaas haddaa wax ka baran weyno dee habeenkii nala ku sheegay baan nahay waxaan haddaan wax ka baran weyna ziira adduunka naloo ka qoray waxaa naloo ka qoray dadka adduunka ugu maasuqa badan adduunkana ugu caqliga yar exactly kuwaas ayaan ku barnaanahay ma beentayba kuwaas ayaan ku barnaanahay haddaanan isdaba qabanin walaalayaalow hadaalinina midnimo qaran qof ku jiro hadaalin mana daalayno muddo dheer baana hawlahan soo wadnay oo aan maxay tahay wacdi iyo qaylo iyo hadal ku jirnay haddana barti baan ka wadaynaa insha Allah guul baan u jeedaa wax badan baa isbedelay guul badan baan u jeedaa ma rabtaa inaad dhaxalkii awowga wuxuunka adna gacanta wax ka gelisid ku soo bor midnimo qaran kan waa dhaxalkii awowga ciid waa dhaxalkii awowga waa dhaxalkii awowga uu walaalkeen Coldoon yiri dhaxalkii awowgay walaalkeen Coldoon ilaahay waxaan ka baryayaa rabbi raxmaan bisha Ramadaan maanta Ramadaana soo dhow shabcaan aan ku jirnaa ilaahay waxaan ka baryayaa bisha Ramadaan khayrkeeda iyo shabcaan khayrkeeda ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu wax walba ugu saqiro walaalaheena in ilaahay xaq tuso oo ay walaalkeen ku soo daayaan waa haliyay Soomaaliyeed waana ka hadlaynaa barnaamijyo kalena waa soo wadnaa waxaan idin leeyahay mid kastoo in kamid ah Coldoon ha ogaado mid kastoo in mid ahna midnimo qaranoo Coldoon qalbiga ku haaya Coldoon waa naga fog yahay xabsigu nooga jira laakiin qalubteena kama maqna taa ogaada hal habeen kama maqna qalubteena wuxuuna uga maqnayna waa waxa asaga aan ka aragnay dhaxalkii awowgay waa dhaxalkii awowga haddaad rabto inaad u heliso maanta ta midnimo qaran ku soo biir oo ka mid noqo midnimo qaran oo daacad iyo qalbi nadiif ah noogula imo walaal oo soo ilow oo meel ku soo rid oo trash ku soo rid oo badda ku soo tuur qabyaalada adiga oo anaga noo arka inaan familkaagii nahay oo noo arka inaan walaalaha kula dhashay nahay oo noo arka inuu yahay dhaxalkii awowga noo imo insha Allah bilmillahi karim inta ayaan kula dardaarmaya waan ku sii dheeraaday laakiin oo qiira ay qabanaysa markaan Soomaaliyeey aan damco inaan hadlo because jaceelka aan qabo dadkeygii because jaceelka aan qabo ciideedii because dhibtii badneyd iyo silci badneyd oo dadkeyga aan ogahay inay mareen inta dhimatayna Allah u naxariisto ilaahay waxaan ka baryaa intii dhimatayna ilaahay u naxariisto inta nool ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo badbaadiyo ciidana Allah noo badbaadiyo dhulkeena Allah noo badbaadiyo walaalayaal aan wax iska bedelno xoolihii la sheegayay waxa la xooluhu habeenkii meesha ay seexdaan arigoo kale waxa la xir u leeyahay wuu baxaa adduunku soo daaqaa wuu soo cunaa wuxuu risqi soo raasada laakiin xiradiisu waa yaqaanaa xirada uu ku xirona waa ka saa wuu soo noqonaa xiradii albaabka laga furaa dharab waa galayaa annagu waxaan noqonay qolo aan xataa meesha ay seexdaan aqoonin iska yaacaysa adduunyada bahaahin oo aan garanayninba inay ciid lahaayeen inay ilaahay calan siiyey in ilaahay adduunka nimcadii jirtay oo ayaga ilaahay inuu hoos soo degtay nimcadii si loo qoto ma naqaan nimcadii si loo isticmaalo ma naqaan calankeeni ka cararnay ciideeni ka cararnay dadkeeni baabee wiilasheeni iyo dhallinyaradeeni maalba maxay tahay magafa iyo South Africa lagu gowracaa waxaasi Soomaaliyeed haddaan isdaba qaban waxaan noqonaynaa nation waa taariikhda laga sheego oo la dhaho oo waxa jirta qolo la dhaho Soomaaliyo maxay haytay haddaan noqonin barnaamijkan ama midnimo qaranna wuxuu ku saabsan yahay inaan taa
shaydaanka taa iska naarataa aanan hore ugu soconin because waa jid xun oo aad u xun waaye nagala soo qayb gala kuna soo dhawaada wax in alla inta midnimo qaran team member active ahayd oo dadaashay aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa idinkugu baraarusanahay idinkugu faraxsanahay ilaahay ha noo kindaayo anigana waa idinla shaqaynaa idinkana waa ila shaqaynaysaan waa wada shaqaynaynaa insha allah bilmillahi kariim midnimo qaran waa programkaagii waa barnaamijkaagii waa barnaamijkeeni waa barnaamijkii ummadda soomaaliyeed qolana ma laha waa soomaali waxaan raadinaynaa calankeena dhulka inaan ka qaadno waxaan raadinaynaa ciidii ilaahayna siiyey adduunka nooga beeray inaan dhahno ma ogiya dhib aana u geysanin in aan dhahno ilaahu noo badbaadi ma ogiya aana dhib u geysanin walaalayaal wixii nagu soo dhacay waa nagu soo dhacay laakiin ilaahayna waa yiri quraankiisana uu ku sheegay weligaa wixii ku soo maray horaa looga socdaa waa haddii xataa aad baaba ahayd nolosha waa la bedeshaa horaa loo socdaa wanaag baa loo baxaa dhibtii ku soo baxday waxaa la taraagareeya wanaag in lagu bedesho wixiina soo maray dib u eegi mayno caqli xumay ahayd cawaanimay ahayd ummadda adduunka dadka ugu caqliga xun baan noqonay wixii aan samaynay taa eegi mayno maxaan hadda eegaynaa bal generationada cusub iyo mustaqbalka dambe iyo laankii awowgeen usoo dhintay awowayaasheen usoo dhammaadeen adduunka taariikhda uga tageen innagana taariikhna uga tagno oo aan dhahno alla ilahe ma qabiila iskala dagaalami weyna cadow shisheeya iskala dagaalanay qabyaalo waa inaan iskala dagaalanaa shisheeyana ma haysta hadda shisheeye inuuna haysto iyo inuu nagu soo durdurko iyo inuu sidan jirtiyo habeen walba na ceejiyo habeen walba madaxa naga gooyo annaga isu keenay haddana innaga iska saari karna insha allah bilmillahi kariim soomaaliyay waxaan leeyahay isku duubnibaa gacmo wada jir ku gaaraa isku duubnibaa adduunka meel lagu gaaraa midnimo ayaa meel lagu gaaraa midnimada gurigaagaas haddaadan xaaskaaga iyo ilmahaaga iyo reerkaaga aad isku haysanin dee ma midaysnid tan guud oo calankaaga iyo ciidaadana haddaadan maskaxda ku haynin dee waxba yahay baa taha waxba ma tihid marka taa waa inaan xoogga saarnaa walaalayaal waa inaan taa ku wada dadaalnaa barnaamijka midnimo qaran beejka midnimo qaran waa beejkiinii waa beejkeenii waa beejkoodii waa beejka ummadda soomaaliyeed nugula soo biira caqliga nagu soo saa'idiya maskaxda nagu soo saa'idiya qoraalka noo soo dira wanaaga ka hadla intii dhacday gadaal ha eeginina inta wanaag hadda dhacday aan ka bilaawno si aan dadkeenu usoo celino waxaa horoo dhacay inaga daaya qof aan awowgiis la qalin adeerkiis la qalin aabihiis la qalin soomaali waxay noqotay cawaan maxay tahay wadamada afrikaanka oo 2 sano kaliya wadankii afrikaanka oo 2 sano kaliya isbaabi'iyay isla markiiba heshiiyeen oo ay ogaadeen waxay sameeyeen cawaanimo inay tahay annaga 27 years bay nagu qaadatay oo meel kasta calan yar noo ka taagay oo meel kasta ee baalkii oo dhulkeenii dad cabirteen oo badaheenii dad cabirteen annagana wali waa iska jijiifnaa waa iska barbarna sheekada marka ma soconayso walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay wanaaga hayna waafajiyo ilaahay xaq hayna waafajiyo ilaahay rabbi raxmaan waddankeeni iyo dadkeeni ha badbaadiyo ilaahay ummadda wax qarxinayso dadkeeni dhamaysay ha naga qabto laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ay qaabiilka inta isu tagtaan aasa annaga riwaayad ma sameeynaa soo wadnaa wadani dhabana waa maqlaayaan insha Allah qabiilka duuga la dhaho way dhici doontaa waa sameeynaa wax alla wixii aan tusaale xun aan ka tusi doono dadkeena waa sameeynaa idinkuna walaalayaal sidoo kale waxaan ka sugaynaa qof kasta oo midnimo qaranow waxaad ogaataa markaad midnimo qaran ku soo biirto in aanan anagu assignment ku siinayn ama aan ku dhahaynin do this waa ina adiga firfircoonidaada iyo adiga active-nimadaada iyo adiga wadanimadaada aan ka aragno adiga wadaninimadaadu waa inay ka muuqato firfircoonidaadu waa inay ka muuqato waxaan soo marnay ciilka ay ku haayo iyo sidaad u jeclaan lahayd ummadaadu in ay mid noqoto ilaa mar waad dhimanaysaa adduunka waa la dhimana qof joogay ma laha laakiin waa inaad at least aad tahay qof wax fahmaayo oo og geeridu waa xaqe maxaad ku nooshahay wax fiican bal ku noolow oo bal wanaag haddaad meeqa sano nagu qaadatay wax halli jiray wax maxay tahay wax sheeg jiray iyo wax dhigi jiray waxaan maxay tahay soo marnay waa khalad laga baxo qof walba uu baqaya qolana shisheeye la shaqaysataa shisheeye ka baqaysaa qolana maxay tahay wada hadlayaan xilin oo ha soo hadal qaadin Soomaaliya nabad inay ka dhacdo kulligeen we have to speak up kulligeenna waa inaan dagaalanaa kulligeenna waa inaan noqonnaa cidyaha inaan ku dagaalamayno ma aha inaan xabada qaadayno baangada ka goynayno dadkeena shalay isbaabi'iyay wixii calaamada u garaacay Soomaaliya inaga lee waaye maantana calaamada aan u garaacna nabadii iyo maxay tahay wadanimadii iyo maxay tahay midayntii iyo isku duubnidii iyo wanaag raadiskii taasaan kula dardaarmaya qof kasta oo midnimo qaran ku jirana waxaan ku leeyahay soo dhawow barnaamijkan waa barnaamijkaagii nala wad hawsha because hawshan waa hawl dheer ma ahan hawl easy ah kulligiin ina active noqotaan meel kasta adduunka aad joogtid bakiin hadda joogto diyaar baan ku nahay nala soo gala wadan kastana hal qof baan rabnaa
oo noo halgama oo noo hadlo walaalayaal oo kasoo hadla asaguna maxay tahay midnimo program oo dhaha mar walba barnaamijka midnimo program iyo meel hebla meeshu markaa uu joogo waa walaashin midnimo JJ waxaan kaga tagayaa dhammaantiin ummadeeniyo ilaahay mideeyo khayr iyo barwaaqo إن شاء الله هويوينك وحنا ليه مانتو ومادرس دي إلهي وحنا كبريا هويوينك الصومالية جنة فردوسة الدونك إيا أخرب إنه بشارة بكوس هويوينك الصومالية وقالي كل جين وحنا ليه بمادرس دي ملك سأجوكتان هويو وحنا ليه ومانتي هويو ذا هويك استخير الله وافجيو هويوينك الله النود دايو لكن هويوينك وحنا كل دردار ميا سيدي أي دكور أمي دين لهاين إني حوك سارة سيدي دكور أي أمي دين لهاين إني حوك سارة إني إسكت دايان مربى إني تاجران قلوا مجالة كتمت أنا تاسن كل دردار ميا إن شاء الله بالله الكريم وحن كنت جا ولا يا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهينا سنة خير قبها وقد سنة كون عجها قد قال منا برنامج من مقرن وبرنامج كاجي وبرنامج كيجي وبرنامج كيني والسود دلالة أنود دلالة أنود هالجنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.